kula wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka qubanaha VOA oo idinka imaanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah dadweynaha Mareykanka oo sugaya natiijada doorashada madaxtinimada madaxweyne Trump iyo Joe Biden midna wali guul ma helin, laakiin codadka waxaa ku horeeya Biden. Soomaalida u kala codeeyay labada xisbi waa sidee dareenkoodu. Ethiopia oo qarka u saaran dagaal sokeeye iyadoo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu ciidamo u diray gobolka Tigreega. Falanqayn ayaanu idinka haynaa. qodobadaas iyo kuwa kale ayaa ku daawan doontaan barnaamijkeena qubanaha VOA. aan ku bilownay dadweynaha Mareykanka ayaa wali sugaya natiijada doorashadii Talaadadii dhacday iyadoo aan wali lagu kala bixin gobolada sida weyn la iskugu haysto. musharaxa madaxtinimada ee xisbiga dimuqraadiga Joe Biden ayaa ku horeeya codadka ergooyinka, laakiin madaxweyne Trump ayaa sheegay in wax isdabamarin ay dhacday iyadoo dhinaciisu ay dalbanayaan in codadka gobolada qaar dib loo tiriyo. labada musharax ayaa mid waliba uu ku guuleystay goboladii la filayay inay ka helaan codadka ergada ee siin lahaa guusha aqalka cad. labada musharax ayaa mid waliba uu ku guuleystay goboladii la filayay inay ka helaan codadka ergada ee siin lahaa guusha aqalka cad, laakiin gobolada Georgia, Pennsylvania, Arizona iyo Nevada ayaa wali la tirinaya codadka. Georgia iyo Pennsylvania waxaa ku horeeya Trump halka Biden uu ku horeeyo Nevada iyo Arizona. Biden ayaa wariyaasha u sheegay inaanu ku dhawaaqaynin guul, laakiin waxa uu yiri marka tirinta codadku dhamaato waxaan rumaysanahay in aan guuleysan doono. waa in cod waliba la tiriyaa gobolada dhiman ee wali natiijadu aanay soo bixin, ayuu yiri Joe Biden. Trump ayaa taageerayaashiisa aqalka cad ugu sheegay guul. waxaa kale uu sheegay in maxkamadda sare ay tagi doonaan si ay isugu dayaan inay hor istaagaan waxa uu ku tilmaamay codayn la joojiyey. tani waa isdabamarin weyn oo dalka ka dhacday, ayuu yiri madaxweyne Trump. doorashada Mareykanka waxaa ka qayb galay dad lagu qiyaasay in ka badan 150 milyan oo qof, kuwaasi oo u kala codeeyay labada musharax. dadkaasi codkooda dhiibtay waxaa ku jira Soomaali badan oo u codeeyay xisbiga dimuqraadiga, laakiin sidoo kale tiro kale oo Soomaali ah ayaa waxay u codeeyeen xisbiga jamhuuriga. haddaba natiijada doorashada ilaa iyo iminka inta la og yahay iyo waxa laga filayo waxa aan ka wareysanayaa laba qof oo Soomaaliyeed oo kala taageersan xisbiga jamhuuriga iyo kan dimuqraadiga. waxay kala yihiin Safiya Yaasiin Faarax oo u codeysay madaxweyne Donald Trump iyo Cusmaan Cali Axmed oo u codeeyay xisbiga dimuqraadiga musharaxooda Joe Biden. labadiinaba waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada barnaamijkeena qubanaha VOA. haddii aan Safiya ku hormaro, Safiya bal iga waran waa sidee xaalka xisbigeenu? waa ku salaamayaa Mascad walaal iyo walaalahayga kale ee ku jira Cismaan. runtii hadee wax aan hadda ku hadalna ma naqaano runta markaan kuu sheego. wixii oo dhan wuxuu noqday maaragtay hadba war baa soo dhacaya, by every minute wax way isbedelayaan. waxaa socda lawsuits, waxaa socda maxay ahayday recount baa la leeyahay steedyada qaar lagu sameynayo ama dibu tirin codadka lagu sameynayo. sida Wisconsin oo kale uu madaxweynuhu leeyahay waan codsanayaa. Pennsylvania hadda waxaa la leeyahay madaxweynaha maaragtay baa helay, haddana dad baa miidiyada qaar su'aalay ka keeneen. runtii aad maaragtay chaos ayaa muuqda, waxaa la dhaho chaos maaragtay isku dhexyaac, laakiin dee haddana waa lagu kalsoon yahay waddankan Mareykanka doorashooyinka iyo systemka jira oo walwal badan oo sidaas hadda lama qabo. ugu dambeyn waxaa la rajeynayaa in codadka la tirin doono, waxa waqtiga unbaa dheeraan doona. waa tahay Cusmaan, adinka dhankiina xaalkiinu waa sidee? Mascad warta waa ku salaamay adiga iyo walaalaha ku jira meesha maxaa la dhahaa TV-ga iyo dadka daawanaya intaba dhammaan. horta waxaan dhihi karaa anaga hadda doorasho madaxweynenimo waxaa naga xigto saacad iyo ama saacado kaliya la tirinayo haddaan nahay xisbiga dimuqraadiga. Joe Biden hadda aniga waxaan taaganahay waa madaxweynaha oo dooran. marka haddii aan kusii darana waxaa waaye doorashadan horta way ka duwan tahay doorashooyinka hore lasoo maray. marka waa doorasho kusoo aaday waqti adag oo waqtigaas oo ah waqti dadkii aysan codeyn karin oo tegi karin meelaha laga codeynayo badankooda. marka waan iska ogeyn horta inay qaadanayso waqti xoogaa badan oo ah in codadka la tiriyo. dad badan oo aan horey u codeyn jirin waxaa loo yaqaan absentee ballot baa codeeyeen. taasna resultiga hadda waa la sugayay ilaa xalay
stateyaduna state kasta u tirinayay way ka duwan tahay stateyada kale way kala duwan yahaan taasna marka waxaan arkaynaa hadda saacadii lasoo dhaafsay aan arkaynay ama aada maqashaba waxaa waaye waxaa guuleystay Wisconsin iyo Michigan Joe Biden waxaana uga dhiman hadda inuu hal state ku daro Nevada oo kale ku daro marka taas waxay tusaysaa macnaha xoogaa dadku inay dulqaataan oo u dulqaataan waqtiga daraadiis si loo codeeyay processku way ka duwan tahay wixii hore lasoo maray doorashooyinka way ka duwan tahay laakiin guusha ugu dambaysa inay raaci doonto xisbiga dimuqraadiga Joe Biden heli doono runtii Trumpna asaga isku madaxweyne isku dhawaaq noqday laakiin ma aragtay ma malaynayo maaragtay in oo guul uu adag واي صفي أيان أتجيا صفي واحد جرتين مدحوينه دونالد ترامب إلى هذا قبل بدن وكوجولستي سكولو ذا هاي حالده ما حد رجينا إنسان ما لينا إنسان إن عاد حزبي إنه أي دور شدن أقول ككينيا هرترونتي أنه آبان يدن وناكسنت هاي وحاسلان هاي هدي عدد كلا تريو أو سيسح الله تريو in uu madaxweynaha guuleysanayo waxaan saa u leeyahay waxa waaye dadkoo dhan haddaad og tahay miidiyada markay noqoto waxaa lagu sameynaya madaxweynaha waxaa la lahaa xataa ma suurowdo inuu in yarna helo waad xasuustataa maxaa la dhahaa booliska beenay sheegayeen oo booliska marka dib loo fiiriyo kulli waxay oranayeen Joe Biden wuxuu horeeyaa 10 qaar waxay lahaayeen 12 buu horeeyaa marka horta waxyaabo badan oo taariikhiyaha dhacay oo ah inaan booliska wax la aamini karo ayna ahayn tan hore tan labaadna in madaxweyne Trump oo la lahaa in uu xataa gobolada qaar heli karin uu ka yaabiyay dadka hadda tusaale ahaan gobolka Florida waxaa jira district dhan oo dimuqraadi ahaa oo 70% u codeyn jiray dimuqraadiga meesha ugu badan oo codka ka helay madaxweyne Trumpna halkaas ay noqotay waxaa kaloo iyadana jirta dadka madaxweynaha waxa sidaad ogtiin waxa lagu tilmaami jiray inuu cunsuriyad sameeyo inuu maaragtay dadka kala sooco laakiin waxa cadaatay oo aan data aan hadaaya akhrinayay in 32% dadka laga tirada badan yahay ama madowga ha noqdaan ama Isbaanishka ha noqdaan inay dadkaasi cod siiyaan waana madaxweynihii ugu badnaa oo Republican oo intaas cod hela marka waxay ku tusinaysaa madaxweynaha sida uu competitive u ahaa ama uu tartankiisu uu awood u lahaa waxay ku tusinaysaa madaxweynaha mar alla markuu gobolada tago ama isteedada kala tago wixii shacab ahaa oo soo baxay way ka jawaabeen codkoodii marka waxaan rajaynayaa anagu aad baan u rajo weynahay haddii codadkoo dhan la tiriyo sidaad ogtahay meel waxaa la sameeyey mail-in ballot waxa la dhaho maaragtay oo koronada awgeed oon hore loo sameyn jirinin codad aad u tiro badan ayaa dhiman in la tiriyo marka waxaan isleenahay waa la helayaa haddii ilaahay rajadiina waa wanaagsan taas leedahay wata cismaan haddii aan adiga ku imaado sida ay safiyaba tilmaamayso saadaashu waxay lahayd dimuqraadiga Joe Biden oo waliba si awood badan oo hir blue wave waxa la yiraahdo ayaa Mareykanka ka dhacaya taasina uma muuqato in ay dhacday maxaa isbedelay waa maxay sababta ila ay hadda doorashada loo kala bixi lahayaa gaar ahaan xisbiga dimuqraadiga rajadii ay qabeen maxaa ku dhacay horta waa doorashada horta waa saada soo sheegay mas'ada waa ka duwan tahay doorashooyinka hore marka hadii lagu kala bixi lahaa caadi loo codeyn lahaa waxaan aaminsanahay subaxan in la ogaan lahaa mar hore ama xalayba la ogaan lahaa waqtigii by midna in la ogaan lahaa ama 12 la ogaan lahaa waqtiga qofka guuleystay oo Biden guuleysan lahaa laakiin hadda say sheegtay Safiya codka la tirinayo 70% ama 80 codka early voting la dhaho oo hore loo soo diray waxaa ku reynaya waa Biden haddana isteedyo badan oo xal oo dhan uu hogaaminayay Trump wuxuu ku helay hadda Biden saas waaye haddii aan Safiya soo geliyo Safiya waxaa jirta in la leeyahay doorashadu ma ahayn ta madaxweynaha oo kaliya aqalka sanadka oo kale ayaa loolan uu ka jiray maxaad ka rajaynaysaa sanadka kulay waxaan rajaynayaa in ay xisbiga jamhuuriga ay mahaysan doonaan waxaa muuqata ifafaalo badan oo wanaagsan oo senataro badan ay maaragtay kuraasooda ceshadeen sida hadda senatarka South Carolina oo kale Lindsey Graham waxaa la filayay inuu weyn doono dhaqaale xumo awgeed waxaa socday sheekooyin badan doorashadii ka hor waxay cadeynaysaa hadduu Lindsey Graham ku guuleystay kursigiisii uu ceshtay kuwa kale oo badan inay ceshan doonaan marka rajo wanaagsan baad ka qabtaan waaya aad baad u mahadsantahay Cismaan ayaan u tagayaa Cismaan dabcan waa soo gabagabeynaynaa
tirintii codadku weli waa ay socotaa ilaa iyo hadda cid guulaysatayna ma lahan adigoo soo koobaya rajadiinu waa sidee maxaad filaysaan annaga mar kale ku soo celinaa dadka horta inay waqtiga ay waqti siiyaan doorasho inta la tirinayo ay asbuuc iyo wax la jira qaadan karto iyo ka badan ba ay qaadan karto laakiin annaga rajadeena saa hadda sheegaba saacadaha soo socda waxaa la marajinaya lagu dhawaaqayo Joe Biden inuu madaxweyne noqon doono inuu rayn doono Georgia iyo Pennsylvania uu rayn doono wiiga dhamaadkiisa aad baad umahadsantahay safiyo wax ka yar 20 biraqsi baad haysataa maxaad rajaynaysaa idinkuna anaga xisbiga jamhuuriga waxaan rajaynaynaa in uu guuleysto madaxweyne Trump oo aad rajadiisa hoos loogu dhigayo doorashada markii la galayay waxay cadeynaysaa inuu tartankiisa uu ka sareeyay tartankii maxaa la dhahaa madaxweynaha kale marka waxaan rajaynaynaa inaan guuleysan doono haddii la haydo aad baad umahadsantahay safiyo kuwaasina waxay kala ahaayeen safiya yaasiin faarax iyo weliba عثمان علي أحمد ولبدو كلا تاجر سنة حزب الجمهوري يكن ديمقراطية أو إيورامي أدبر ما سنتين Soomaalida Mareykanka gaar ahaan kuwa Minnesota ayaa guula ka gaaray doorashadii ka dhacday wadanka Mareykanka. Ilhaan Cumar ayaa waxa ay mar kale ku guuleysatay aqalka Koongareeska ee wadanka Mareykanka. Hodan Xasan iyo Maxamuud Nuur ayaa iyaguna mar kale ku soo baxay doorashadii aqalka hoose ee gobolka Minnesota. Cumar Faatax waa wiil dhalinyaro ah oo ku dhashay wadanka Mareykanka ayaa isna markii ugu horeysay waxa uu ku guuleystay inuu ka mid noqdo aqalka sanadka ee gobolka Minnesota. Cumar Faatax ayaa taariikh cusub ka dhigay gobolka Minnesota kadib markii uu noqday qofkii ugu horeeyay Soomaaliya ee ku guuleystay aqalka sanadka ee gobolka Minnesota. waxaan aad u faraxsanahay inaan ka mid noqdo aqalka sare ee Minnesota Senate. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo tiimkii la shaqeeyay iyo ummadda Soomaaliyeed oo i codeeyay. dhalinyarada Soomaaliyeed ee wadanka Mareykanka ayaa aad u soo dhaweeyay guusha Cumar Faatax. Naadiya Maxamed oo lafteedu ah gabar dhalinyaro ah oo sanadkii hore loo doortay golaha deegaanka ee magaalada St. Louisburg ee gobolka Minnesota ayaa guusha Cumar u aragta tallaabo dhiirigelinaysa dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Mareykanka oo ku dhex koraya laba dhaqan oo aad u kala duwan. aniga aad iyo aad u faraxsanahay inuu dhalinyaro kale ku guuleystay tartankiisa maxay tusaysaa anaka mustaqbalka fiican inaan dhisoono rayskana meesha waalidiinteena ku joojiyeen ka qaadano ku guuleysano waan ogtahay ciyaalka hadda meeshan ku soo koray labada dhaqan ay ku soo korooyaan labada dhaqan ay sometimes ku dhaxlumaan maxaa rabnaa inaad dhalinyarada tusano mustaqbalna meeshan ka heestaan maxaa lahay in guuleysan karaan wax kasta ay sameynayaan inay ku guuleysan karaan. aqalka gobolka Minnesota waxaa hore ugu jiray laba xubnood oo Soomaali ah kuwaasi oo ka tirsan xildhibaanada aqalka hoose hase ahaatee ka mid noqoshada Cumar Faatax ee golaha sare ee sanadka ayaa tirada guud ka dhigaysa 3 xubnood oo Soomaalidu ku leeyihiin aqalka looga arrimiyo gobolka Minnesota. madaxda jaaliyadda Soomaalida ayaa guusha Cumar Faatax u arka horumar ay Soomaalidu ka gaadhay siyaasadda gobolka. arrinta waxay nooga dhigan tahay arrin aad muhiim ah oo aan ku faraxsanahay waana tallaabo hore ay u qaaday bulshada Soomaaliyeed ee Minnesota ku nool Soomaalida ah una fiican Soomaalida Mareykan oo dhan. Senator Faatax wuxuu fariisan doonaa aqalka sanadka oo aan weligiis qof Soomaali ah fariisanin halkaas oo lagu go'aamiyo danaha waaweyn ee gobolka. dhinaca kale waxaa isna loo doortay golaha deegaanka ee magaalada New Brighton ee gobolka Minnesota Cabdullaahi Macalin Salaad Cabdulle oo ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka waana markii ugu horeysay qof Soomaali uu ka mid noqdo golaha deegaanka ee magaaladaasi. wallahi aad aan u faraxsanahay aniga kaliya ma aha dadka campaign-kayga ka shaqeynayay iyo aniga iyo qoyskayga iyo asxaabta iyo maxaa la dhahaa reerka oo dhan Soomaalida dhan oo area-da degan dadka minority-ga ah dadka community-ga New Brighton degan cod kasta ku faraxsan because waa maalin taariikhi ah markii ugu horeysay oo qof immigrant ah ama Soomaali ah ama Soomaali ah ama Muslim ah ama madow ah oo intuu ordo raayo waaye kaliya uusan raayinin ma ahan kaliya inaan raaynay waxa waaye waxaan ku raaynay codka ugu badan qof inta ila orday shanta kale ila orday codka ugu badan aan helay qofka igu soo xiga oo igu soo dhow waxa noo dhaxaysa 5% ama ku dhawaad 900 oo cod aan noo dhaxeeya. Soomaalida Minnesota ayaa dhowrkii sano ee la soo dhaafay sanad kasta ku guuleysanayay kuraas horle waxaana muuqanaysa cududda siyaasadeed ee Soomaalidu ku leeyihiin gobolka walow ay waxgaradka Soomaalidu rumaysan yihiin in guulaha iyo midnimada jaaliyaddu ay aad u kala fog yihiin. dalka Itoobiya waxaa ka taagan xiisad iyo qalalaase sababi kara in dalka uu ka dhaco dagaal sokeey.
ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa waxa uu amray ciidamada federaalku in ay tallaabo ka qaadaan ciidamada tigreega oo lagu eedeynayo in ay weerar ku qaadeen saldhig military. haddaba xiisadan cusub maxay horseedi kartaa? ma dhici kartaa Itoobiya inay kala godo? arrimaha iyo kuwa kaleba waxay la falanqeynaya Cabdiweli Xuseen Gaas oo ah aqoon-yahan ku dhaqan wadanka Sweden isla markaana xilal kala gedisan ka soo qabtay maamulka Soomaalida Itoobiya iyo ururka ONLF. Cabdiweli, bal adigoo soo dhawaanaya marka hore maxaa keenay in ciidamada Tigreedu ay weeraraan saldhig military oo ciidamada dowladda wadanka Itoobiya ay leedahay? waxaa keenay xaaladdu waxay gaadhay meeshii ugu dambeysay labada dhinac dowladda federaalka Itoobiya oo Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha ka yahay iyo maamulka Tigreega ee TPLF ee gobolka Tigray waxay isla gaadheen heer ay soo aqoonsadaan mid walba midka kale inuusan sharci ahayn, legitimate government inayna ka jirin federaalka. kuwan dowladda federaalkuna waxay u aqoonsatay doorashadii TPLF ay qabatay ee Tigray ka dhacday inayna sharci ahayn. sidaa daraadeed waxayna ka joojisay budgetkii. kuwaasuna waxay ku TPLFna waxay ku dhawaaqday maamulka Tigray in dowladda Abiy Ahmed waqtigeedii dhamaaday 5 October bishii hadda la soo dhaafay oo ayna sharci ahayn waxbana ka joojin karin. marka ayagoo halkaa isla taagan ayaa dowladda militariga Itoobiya ninkii qaybta waqooyi u joogay jananka aaba iscasilay. intii badnaydna hubkii iyo ciidamadii baa waxaa la wareegay TPLF iyo maamulka. janan kale u magacaabay Abiy Ahmed, janankii bay maqale airport ka soo celiyeen. marka taasaa xiisada baasiin kusii shubtay. marka in September ay doorasho qabsadaan Tigreed maxaa ku kalifay? maxay doonayaan oo ay rabaan inay u go'aan Itoobiyada kale dhinac uga noqdaan? TPLF laga bilaabo 91 ilaa iyo 2018 bay wadanka coalition EPRDF la dhaho kusoo xukuntay. ninkan Abiy Ahmedna isbedel jamadii dagaalamaya waqti dheer caalamka iyo dhinac walba ka soo fashiliyay nidaamka TPLF iyo kacdoon markii ugu dambeeyay ka qarxay gobolka Tigreega yaa isbedel ku yimid. wuxuu ballan qaaday inuu maxaan ku dhahay dimuqraadiyad, rule of law, doorasho xor iyo xalaal oo wadanka ka qaban. waxaasoo idil markuu ballan qaadayo waxaa garab socday TPLF dee wadanka ayadaa xukuntay. janan oo idil ayadu ahaa meelaha muhiimka oo idil Itoobiya ayadaa xukuntay inuu tartiib u ururiyo oo xilalkii ka qaado oo xidhxidho. ayaguna waxay u arkeen in awoodiina ay ka wareegayso qoomiyad ahaanna meel walba lagu laynayo oo lagu ugaadhsanayo. sidaa daraadeed cadowbay u arkeen Abiy Ahmed aan ka turjumaynin gudoomiyihii BRF oo kursiga ku fuulay ayagu kamid ahaayeen oo ayaga marginalize garaynaya. si ay marka u fashiliyaan ayaa markuu yidhi COVID-19 daraadii cudurkan caalamka qabsaday daraadii baan dib ugu dhigay doorashadii. ayaguna yiraahdeen cudurkaasoo jiraan qabanaynaa. doorashadii way qabteen. taasaa marka waxay isku dayayeen inay caalamka tusaan in doorasho la qaban karo. marka waa tit for tat. ayagu waxay rabaan inay awoodii kusoo noqdaan oo ay Abiy Ahmed fashiliyaan. haddayna kusoo noqonayninna ay gooni u istaagaan oo ay qaran ka madax bannaan Itoobiya noqdaan. waaya cabdiweli aad umadsanta ugu dambeyntii haddii xal la waayo ma u malaynaysaa in ay tani suuro gelin karto in Itoobiya ay kala go'do? khuburo Maraykanka oo 2005 saadaaliyay wadamada 20 sano soo socda kala tegi doona burburi doona. 2005 waxay saadaaliyeen Itoobiya 2020 inta kilal ay tahay oo dowladood inay noqonayso ayagoo ku saleeyay inay centerka awoodiisa iyo dowladda dhaxana ay sii burburayso. marka dagaalkan waxaad moodaa taa ay sheegayeen khubaradu 15 sano ka hor inuu ifafaalo u yahay oo bilowgii kala dhaqaaqa Itoobiya burburka laga filayo ama kala dhaqaaqa laga filayo ma aha ka Soomaaliya oo kale ma. waa ku state walba inuu gooni u go oo centerkii uu ku guul dareysto wadankii inuu isku hayo wada xukumo. kaasi waxa uu ahaa Cabdiweli Xuseen Gaas oo ah aqoon-yahan Soomaaliyeed oo ku dhaqan wadanka Sweden waxa uu igu waramayay qadka Skype-ka. waa tahay daawadayaal inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qubanaha VOA. intaynu mar kale dib u kulmi doono
waa maxamuud mascade iyo dhammaanba bahda qubanaha idin leh sidaa iyo nabadgelyo